suuqa gudbin waxa la joog muhiim baad ii tahay kani waa dhiganahayga dhawaan soo galay saxada social media waa buugaygan laga magac baxay rajadu waa inaga in ka badan 6 sano waa buugan qoridiisa iyo fiiradiisa waday inaad idinku i barataan xitaa buugaygan baa sabab u ahaa waana idinka sheekayn doonaa sababta ay u kalafsanaa buugan u qalin qaato iyo sheekada buugaygan ka dambeysay anoo wiil yar oo 17 jiraan dalka ka tagay aniga qaar kamid ah familkii waxaan tagnay dalka Turkiga bila kadib waxaan fursad waxbarasho ka helay magaalo kale oo aan familkaygu joogin kadib meel yurta yiraahdo ardaydu degan tahay baan degay dhalinyar Turkiyan saaxiib noqonay oo meel wada deganayn dhalinyar meel soo keenay waa garanaysaan waxa bilaabatay in ay isdaacayno isla kaftanno waxay wada kaftami jireen dalkayga waxay dhihi jireen dalkaygu dalkiina ma gaarayo laamigaas ma leedihiin baqdaas ma leedihiin anaga idinka waxbarasho fiican aniga isma coodeen jinay ilaahay garashu i siiyay waxaan dhalinyarta ka dhadhacsiin jiray in aanu ka dal fiicanahay ka waxbarasho fiicanahay wax walba aan ku dhaamo intaasna waxay iga ahayd rag iska dhicin iyo saaga hawliicin balse waa ogaa hoosinta dalkayga taala iyo xaalad dalkayga ku jiro adoo dhalinyartu iga aqal badnaayeen markii dan way fakareen oo waxay dhaheen dalkan Afrika ku yaalo anaga naga fiican waa inaan soo ogaanaa waxay raadiyeen taariikhda Soomaaliya ma ogi meel ay ka soo heleen qaraxii Soobe 17 October oo markaa cusub 9 bilood 10 bilood lagu joogay soo heleen waxay heleen madax go'aan oo meel yaal qof dhiigaya hooyo ooynaysa aabo ooynaya meel holcaysa wadan burbur u daaran yahay waxay arkeen wixii aan u sheegay wax in badan ka duwan kadib sawiraantii bay soo qaateen habeenkii bay la yimaadeen waxay ugu dhaheen hadal qalbigii ma hadda ku reebay aan in badan la ooyo la ciishooday waxay dhaheen dalka leedahay wadin ka fiican yahay Soomaaliya dalka dadkiisa u dhamaadeen ku burburay oo ognahay adiga xitaa meesha sidana ka soo carartay haddii aad leedahay meesha sidana ka fiican had dalkaaga aad u laabo aku dhimatidee aniga indhaha yeelin baa ku soo istaagtay waa ciishooday bakeeriya haystay bakii wax tusii ku feeray intaas aad dilaacday wadamada horumaray lama ogola gacan qaad anigana gacan qaadka waxa ay dheerana dhig daadiyay oo habeenkaas ciyaal yar oo Turkiyan waligood dhig arkeen dhigoodi arkeen kadib boolis baa meeshii yimi aniga xabsiga la geeyay oo waa la xiray markaas wiil yar baa ahaa 17 jir ah ciil qaba hooyo aab meesha u joogin qurba ku cusub hadana xaaladii haysato wax badan baa xabsiga ku ooyo ku ciishooday ma aanan u ciil qabin ciyaalkaas waxaas dhaafsanay waxay dhahaanay waxa u ciil qabay oo isleeyahay marka hadda arki lahayd nolol kaga ma tagteen cid dalkayga burburinaysa cid iyadii dhinaca saaga la kaftamo muddo dheer kadib macluumaadayda hawshii maqashay lawyer qabsatay iyo dooday oo xabsi iga soo siideysay markii aan ku soo laabtay meesha deganaa waan u imid dhalinyartii astagaalnayna way raali galiyeen madaxayga dhunkadeen oo intaan xabsi ku jiray hawshii macluumaadtii maqashay dhalinyartii waa loo aqal celiyay waxa lagu yiri wiil yar oo Soomaaliya oo wadankiina ku cusub oo meesha waxbarasho u yimid hadal la munaasab ay ku tiraadeen inaga Soomaaliya saas ku jecelnahay waa ogtiin wiilkaas waxa idinka ma geeyo wayna raali gelisaan oo madax u salaadaan sidii dhalinyartu ii raali galiyeen oo madaxayga dhunkadeen oo ii farxad gelin jireen laakiin anigu waa iska fakari jiray in xaalad haysataha waxa la murugeysnaa oo ka fakari jiray maxaa dalkan oo kale noqon waayay maxaa dalkaaga hoos u dhigay maxaa dalkaaga jooga dad kale kugu imaan waayay adiga martii lagu noqon waayay hoosinta intaas la halkeen ka imaatay waxa ka murugeysnaa aan ka ciishoon jiray way maawani jiray iyaguna markastoo xaflada ay sameyn jireen oo meel ay geeyeen jireen balse nin waxa soo jeeda anigu ma ahayn xaalad baa ay haysatay waxaan daawasiin doonaa sawiraan xasuus ii ah aniga oo 7 sano ka hor ahaa sawirkan ugu horeeya waxa weeye habeenka xabsi ka soo baxay habeenka ku xigay waxay i jarayaan keeg way maawelinayaan aniga aan xaalad haysato murugeysan baahay halkan gabar qoslaysa taagan oo sacbinaysa dhalinyarta kale way sacbinayaan qoslayaan ninka la farxad gelinayna waa aniga oo u jeedaan indhahayga murug ku taagan tahay oo aan murugeysanahay oo waxaan dhanba u jeedin sawirkan ku sii xigana waa isla macalimadaydi halkan waxa ku qoran kara oloshum waxa weeye wiilkii madooba waxay u farxad gelinaysaa madowga waxa leedahay niyadda ugu dhisbalse in madow ka murugeysan ma ahayn wax badan baa fakarayay marka arkay inuu fakarkiiga bato isla hadal rabo waxa go'aan ku gaaray in Soomaaliya soo aado askari noqdo cid walba dalkayga burburinaysa ala dagaalo haddana waxa siinay 100,000 oo wiil oo geesi oo hanad baa dalkan furan ugu jirto askar hadda halka tagtay asal madoosha noqonaysa booska ma banaane waa ina booska la raadaysaa dalkaaga ku sameeyay bixisid waa fakaray haddana waxa ku fakaray in aan waxbarto oo ana professor dalkii imaado 10 sano waxay ugu qaadatay haddana waxa isla boqolaal wax baratay oo professor dalkii joogtay ad wax baranaya booska la raadada dalkaaga ku sameeyay bixisid wiil yar baa hay'ad soo fakaray waxa markii soo bixi waayeen aan arkeen asla hadal rabo oo aan dhuubtay oo aan xaalad i haysato bal waxaan go'aan ku gaarnaa meeshan ka tago magaalo kale iska aado si aan isku ilowsiyo waxaan intan yar oo magaalada la joogay baa wacay waxa inuu xagee joogtaa ku imaanayay wuxuu yiri anigu waa tahriibay magaalo Ismail dhaha jooga waana baxaya war waa si fiican oo ku raacaya waa ku iri tigid baa goostay ninkii uu tagay magaalada Ismail lahayd baa tagay kadib waa baxnay waxaan ka baxnay Turkiga waxaan aadnay Giriga waxaan tagnay xadka u dhaxeeya Giriga iyo Turkiga muddo aad ku toban bari meeshaas joognay tobanka bari marna badda kacsanayd mar bacda la buufinay mar askarta laga dhuumanayay adoo maalintii 11aad maraan qiyaasayo xilli gaab ah baa waxa lagu dhahan mukhalasiintii telefoonadii hal daarto reerihiin hal waxa loo sheego baxin hal dhoo subaxdii waa doonta ku qorantiin hal macsalaameey talafkiiga daarto waxa reeyay inaa hooyada waco oo runta u sheego dhoo hooyada tahriibiyaysa ogow marka WhatsApp-ka soo galay hooyo wac isiri
waxa uu soo galay fariin dheer ay soo dirtay macluumadeedii xabsiga soo siideysay fariintaasina waxay ahayd wiilkaygii uu kaale soo laabo hanoo xanaaqin hanoo caroonin waxa loo qof raacsantaa ku sameeynayna kaale hamiga ka dhabe kaale waxbarashada ka rume kaale waxbaro xitaa meesha degantahay waxbarashada free ba kaaga dhigana hanoo xanaaqin kaale soo laabo aniga ilaahay damiir buu siiyay waa fakiray waxa ku fakiray waxa isniin horow waxa ka xanaaqaysay waa ka dal fiican ah baad isku dagaalayseen waxa uu socotaa wadan aad gacanta horsan doontid oo qaxooti baa noqon doonta niyahow ama dalkaagu laabo dhib yar ku samir ama macluumaadda ama qalooturkaaga ku laabo go'aan waxa ku gaarnaa meesha ka laabto balse meel ka laaban kara ma joogin oo xad baa joognaa gaari ku cilniyo ma lahan mukhalasiintu waa laabanaya kaama yeelayaan hadda kaligaas ka laabatid saxara joogtaa dhexda ku dhimanaysa sinaba looma laaban karo way adag tahay xaaladdu kaligiina laabtana ma rabin waxa rabeen dhalinyarta Soomaaliyeed laabata si ay isku heshaan wax wada barano ila joogaan dhalinyarta Soomaaliyeed hadda u tagay waxa ku yidhimayaho أنا واحد جاهم قارن لابتو إن كل جلابتنا مرة إن أصلا لابنا أرنا صاحبيا ونعليه تركيا أنا كل لابنا وحبرنا سيابر دل كانوا أنفعنه أما دل كان أنا بهاني نمي دل كان يعني بيرد فوس من أكل لابنا واحد استوى يقول هني وحال على عربتي ما خمر بيوكسي سيدنا مسح ندي مركا أركين يوجد شيء سن هذا الكي حقسو قادين وكسر رقاقي هذا الدوم ما نعلن بس ما أنا كل لابن قوان كي وفكري واحد كفكر سيدنا كل لابنا لهين waxa ii soo baxday in askarta isku dhiibno balse askari meesha kama dhawo oo nama arkarto balse wadamada hormari waxa jira wax GPS leeyahay oo la isticmaalo taleefkii baan si hoose u daartay khadka furtay si ay GPS-kiga soo raacdo GPS-kiga askartii heshay sida meesha joogna lagu helay si baan ku soo celiyay oo tahriibka mishiinka u fulay oo Turkiga ugu soo laabanay aniga dhalinyarta kale waan la qaybiyay iyaga waxa la geeyay xabsiga aniga meel ciyaar waxaan aniga college ah oo aniga waxa xabsi la geeyay markaa 17 jir baa xabsi ma qaban karin balse marka hore wuxuu xabsi qabto la xiray inaan markaas dhiig daadiyo fal geystay meesha ka la geeyo ciyaalka waxaan aniga waxa kala kulmay dhacdo kale aad xanuun badan in badan la ooyo oo qalbigayga ma hadda ku reebtay oo ani ahaantii hore iga xanuun badan meeshaas waxa ku jira ciyaal yar oo 12 jir 13 jir ah agoon ah waligood aan banaan arkin marka dhasheen baa meeshaas la geliyay qof Afrikaan qof madow waligood ma arkin uu jiro dunida ma moodayaan xil habeena ku soo aadnay ninkii askariga ahaa intuu wuxuu keenay ninkii maamulaha wuxuu wiilkaas meel seexinta oo taleen oo ahay cuntiisii qol laba ciyaar hurdu keenay wuxuu halkaas wax uu iga tagay markaas xil 3 saac 4 saac ku qiyaasay hay'ad habeen wala seexseexday marka dhinac ku soo dhigay waa qolkii soo qol dhinac ku soo dhigay oo seexaysan indaas ku qaban lahaa waa mid yar sarqantii ku kacay indhihiisa indhahayga isku dhacay cunug yar uu soo baqay waligiis muusan arkin qof Afrikaan madow uu soo baqay wuxuu si dacaawo qolkii bahal baa ku soo galay wuxuu kiciyay kuwii kale waxa arkay ciyaalkii aniga bahalahaaniga baqay dhahay alla bahalka oo qolkii ka baxay marka la ciishado ooyay ma garan kartaa xanuunka ay leedahay qof bahalahaan looga baqayo adigu habeenkaas ma aanan seexan waaga ay bariisa u ooynay waxa xasuustaa habeenkaas waxa habeenkii ugu horeysay noloshayda ama aan sacuriyo oo maanta dheer baa curi xaalad dalkii ku jiray xaalad aniga qurbaha igu haysata ahayd maasadaasna waxay dhahaysay dibtiyo qarax iyo dilkiyo maxaa dakharadana baday maxaa dalkayga dib u dhigay dayaca aan dhamaanayn da'day ilama qabaane wariya dalka naga baleeyay wariya hanka naga dilaaya wariya duugaya rajadeena aan leeyahay dayacan dhamaanayn da'day ilama qabaano da'day qowada nabada ku hana qaaday anigana qurba u silixsanahay aan garanayna cid dalkayga burburinaysan leeyahay wariya dalka naga baleeyay wariya hanka naga dilaaya wariya duugaya rajadeena haduma sidoo way dheerada qalcad kala jirtaan kula hadii dhalinyarta soo xamaaday ay saaxiibada ahayn intan waxay dhahaysay inagoo tarajiya wanaag dalkayga ku beeri karna maxaa dibadaha na dhigay maxaa doqon diifle iyo shisheeyaha noo dardaray ninkaan istayicin asagu rabbigu ma duleeynaye hayeeshe isdoorinteena dan iyo sama laga ma gaaro dadaal baa furan hadeero xalkeenu dib u noqosho weey waxaan leeyahay ninkaan istayicin asagu rabbigu ma duleeynayo ana istayico dalkayga soo tago qurba soo aaday si kala naas ku dayico dalkayga iska burburinayo qarax iyo qabyaalad ka wada ninkaan istayicin asagu rabbigu ma duleeynaye hayeeshe isdoorinteena dan iyo sama laga ma gaaro dadaal baa furan hadeero xalkeenu dib u noqosho weey waxaan leeyahay dadaal baa furan hadeena dadaalno way wax barano si abar dalkeena aan faacno maxalkeena dib u noqosho dalkeena dib u laabano aduma sida way dheeraad waxa ku gabagabeeyay dadii home isu heshanaa danteena ma eegana dalkeena ma dhowrana dunida ma ka daba tagnaa habeenkaas meesha tamaan sida ku curiyay ma aanan si habeenkaas waaga ay bariisa u soo jeeday laba bar istixbar kadib meesha way soo baxnay dhalinyarta kale xataa wala soo siday way sahlan waxaan ku yidhi mayahow xaaladaas adana marka ay qabsatay ila joogo wehel baa rabaa wax isla baran Turkiga joogna waxay u dhahanayeen xitaa markaan dad tahriibis isku wadama marin halka ka baxay ka baxnaa bahar sidii u tagaan u tahriiban anoo iskaga soo laabtay magaaladii markii hore ka tagay anoo iska niyad jabsan markii aan ku soo laabtay magaaladii aan ka tagay oo xaaladii ugu qabsatay markii koow macluumadeedii u soo laabtay ardaydeedii waxa magaaladii kala kulnaa kale aad iga farxisay inta magaaladii ka maqnaa waxa imaadeen laba dhalinyaro ah
oo Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho Soomaaliya ka soo helay kaalinta kuwa Soomaaliya ka soo galay oo deeq waxbarasho loo keenay Turkiga waa farxay waxa ku farxayna maanta helay dad Soomaalida oo halka dhigan doono sidoo kale ay helay dad iga maskax iyo aqoon iyo karti badan waa garan kartaa qof dal dhan kaalinta kuwa ka soo galay waxa sidii dadkii dalka kula samata bixin lahaa si fiican kula baran lahaa maanta heshay sidaas ugu farxay dhinartaas qofkii la garashadnimada siiyeen ku farxan qofka ka sax yani ka fiican oo ka waxtar ka fiican aw dhinartii uu sheekada uga sheekay weelada maqadeen waxay dheen saaxiib kula joogina si fiican wax baran doona been ishii laba asbuuc kadib waxa arkay dhinartii boorsooyinkooda xirxirtay oo dhahay waa tahriibeena waa u qaadan waayay waxa uu qaadan waayay inaan horta koow hal iyo ahayd aan weheshani aan ka rabay inaan soo heshano tan kale ugu qaadan waxay ahayd inaan rajo ka lahaa isdhahay cidii si fiican kula baran lahayd oo bari dalka kula samata bixin lahayd oo fikir isku darsan lahaydeen ba maanta heshay oo dalka kula samata bixin lahayd magacan rajadu waa inaga dalka ka rajo dhigina dhalinyartaas uu ka baxay waqtiga ka sheekeynayna 6 sano ka hor rajadu waa inaga wuxuu ku baxay dhalinyartii inaan ku yeedno wax isla joogno wax isla barano si aan bari dalkan u anfacno aan si fiican u barano ay ugu dhahan iyaguna niyahow 5 sano 6 sano wax barano hadhow dalkii lacag ma helin hadaa lacag helna amni ma jirin waan la qarxinaya dalkeena waa sidaas anna aan ku irinay horajadu waa inaga ina wax barano way si abri dalkeena u samata bixino dalkiina ka rajo dhigina waxa iska dhamaan karaan hadii dhamaan waa in cid la suugayni ka saaraan waa inaga dalkiina ka rajo dhigina adoo dhalinyarta ugu aqli celiyo ku calaacalayo markii arkayna halkii fikirkii ka laabanayn waa ka hadal badii waxay ku dhahan oo kula joogina waayahay أنا فرحت ما جاء عدي إسكال يدور كم كسول لابتنا وحوصل لابتنا يرتي ودونتي وتهريبي وبورسوين كود قاتل مركران يجب وسحن يجبي ودوا حسحن يقول يجب يسري دل كان دتك يسوق في عنا إيسا وخرج تدقينا إلين مرة بنو يعني سمت بحين دونا المركلة كلية نقطة وسكن يجب سنة وسكف فكر يجرو حالات ده يستمر إلا أو كلية سومالي كهنا واجوجي مركز مقام حق جانا ماشان سكتوا مقالة كليسك عادو دنيا كلور هربوسول هاي نسكو حافظة هاي بيسوي يعني واحد المقالة كاستمرين هذا جوجنا أنا وصومالي بدنا مقالة يوسك عادي أنت كتيجي ماشي marka magaaladaas tagaxtana arinteedu kuma soo hadal qaadan oo ma sheegin oo waxa uu sheegay waayay waxaas dhahay wixii xasuusan sidoo kale waxa uu sheegay waayay inay ku yoqon noqonayaan markaas tahriibiyaan baa oga wayna dhacday hadda kulligood 85 ama 90 waxay joogan Yurub way tahriibiyaan mid dhifo Turku haray iyo kuwa Soomaaliya jooga ma ahayn luqadda bilowna waxbarashada galay ma ana ku fiicin waxbarashada deenin waxa ahaa fikiraya markaas laakiin cidna aysan ka dareemeyn laakiin se waxa go'aansan social media soo galo oo aan media aan ka noqdo inaan media soo galo aan ka noqon waxa ay u kaliftay sheekadii markii ku meesha ka soo bilaabanaysay waxay ahayd in dhalinyarada yar asmaan dhaafanay ay u dhahay ka dal fiicanahay ana ku idiga madal fiicnina aan ka dal fiican kadib ay raadiyeen dalkayga wuxuu yahay oo media ka soo helan sawirkaas fooshaxun hadii sawirka fooshaxun uu media ku jireen ma aysan helan dalkayga wuxuu yahay iyo sidoo uu yahay ana waxa go'aan gaarina media galo Soomaali isbaro si aan dalkayga sawir qurux badan ugu gudbiyo ilaahayna uu guuleeyo Soomaalida kale uu garan og yahay ba ku jira waa TikTok ba isticmaal dadka uu falowga badan ba ku jira ujeedka uu soo galayna ma ahayn wax hobigeyga hadda xitaa uma badnisa aragteen oo wax hobi ku ahay maaha wax xaalad soo gelisay ujeedka uu weyn uu soo galayna waxa weeye in aan fikirkayga gudbiyo iyo in aan dadka media ka baraarujiyo insha Allah hadda kadibna waa saa ugu kaba ilaa inaan shaqadan wado waana sii wado doona haduu alla idmo waxa rajeenaya qofkaan ahay iyo sheekada buugay ka dambeysaba inaan si fiican u fahanteen oo u dhuuxdeen hadda su'aashaas weydiinaysan waxa weeye buugay maxaa ku qoran muxuu ka hadlayaa buugaygan kuma qornina calaacalayna cataabay waxa ku qoran cutubyo 6 gaaraya waa 6 sano qoridoodii fikradooda waday waa rabana bulshadeedii dadkii ku wacyigeliyo aan ku baraarujiyo buugaygan waxa ku qoran 6 cutub cutubka koowaad waxa la yiraahdaa rajadu waa inaga oo ka buugay ugu magac daray cutubka labaad waxa la yiraahdaa dhalinyaro maxay noo dana maxaasay noo daran waa cutub bogaadinaya oo dhiirigelinaya dhalinyarada Soomaaliyeed wixii u danahay wixii u daran inay kala ogaadaan sidoo kale dalkan doorkay ku leeyihiin inay ogaadaan sidoo kale inaysan dalkooda ka rajo dhigin cutubka saddexaad waxa la yiraahdaa qabyaalad iyo qabiil jeclaysi isaguna wuxuu ka waramayaa sidaan qurunka qabiilisiga deyn lahayn waxa ogtihiin dalkaygu aafada cudur uu ka hana qaadi lahayn maanta inay tahay qabiilka iyo qabyaaladda kaasna wuxuu ka waramayaa sidaan isiga deyn lahayn cutubka ku sii xiga waxa la yiraahdaa deeqda ilaah dalkeena siiyay isaguna wuxuu ka waramayaa nimcooyinka dalkayga haysto iyo sida uga faa'iideysan lahayn inagoo haysana nimcooyin badan aan halkan ku soo koobi karin waxa inta maqashaan ama aragtaan in dhalinta Soomaaliyeed ku hayaan Soomaaliya shiid baa ka jira iyo lacag ma taalo cutubkaasna waa cutub qeexaya oo sharaxaya dalkayga nimcooyinka haysto iyo sida uga faa'iideysan lahayn cutubka ku sii xiga waxa la yiraahdaa aqoon ma dadka anfacda oo cutubka inta badan buugay ka waramayo xitaa jildiga ka dheehan kartaan
cutubkaas aqoon baa dadka anfacda wuxuu ka waramayaa isaguna faa'iidada inoo leedahay waxbarashada iyo aqoontu dalkeena iyo dadkeena uma baahna in qori lagu maamulo waxay u baahan yihiin maskax ka saliima jahal iyo aqoon darada maskaxdii aqoon leh baan isbedel keenta oo waatan la dhaho de la wiilo hooyo aabooda dhaleen bal mid naftiisa wax laga weydiin mid dunida wax laga weydiiyaa waxa isku dhaafeen aqoon iyo cilmi dadka inay muhiim u tahay waxbarashada iyo aqoontu cutubka ugu dambeeyana waxa la yiraahdaa wadaniyada oo wuxuu ka waramayaa isaguna muwaadinka iyo wadaniyada looga baahan yahay waxaan rajaynayaa inaad fahantay oo dhuuxtay buugiga waxa ku qoran iyo wuxuu ka hadlay aad baan salaamay